Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Gabar ayaa waxay ahayd ilaa muddo sanad ah inay maalin soonto, maalinna ay afurto, islamarkaana waxay ahayd mid ku dadaalaysa cibaadada sida in ay habeenka u istaagto salaatuleyl, ayna akhriso qur-aanka, waxayna Alle ka baryaysay inuu saygeeda ka dhigo ina adeerkeed oo ahaa wiil aad u wanaagsan oo taqi ah. Sanadkii markii uu dhammaaday, arrin lama filaan ah ayaa qabsatay gabadhii markii uu ina adeerkeed doontay gabar kale. Aad ayay u murugootay, cibaadadii waa ay ka tagtay sida salaada, soonka iyo qur'aan akhriska. Xaaladii ay ku sugneed ayay nacday, waxayna isku dhiibtay waswaasinta shaydaanka. Kadib waxay ahayd maalin walba in ay murugaysan tahay. Kadib waxay telefoonka ka wacday sheekh caalim ah oo ka mid ah culimada ugu caansan. Arrinteeda ayayna u sheegtay, waxayna weydiisay maxaan u marayaa dhibaatadan oo aan u soo gaaray heerkan aan ku suganahay. Sheekhii wuxuu yidhi, hadalkaaga waxaan ka ogaaday in aad qur-aanka xifdisan tahay, bal ila eeg aayadda 11 ee suuratul Xaj. Dadka waxaa ka mid ah qof Alle ku caabudaya shardi, haddii uu khayr helo waa uu ku xasilayaa, haddii ay fitno ama dhibaato asiibtana gadaal ayuu u laabanayaa, adduunyo iyo aakhiro waa uu khasaaray, kaa ayaana ah khasaaraha cad. Keliya waxaad ahayd mid Alle u caabudayso in uu kuu yeelo sida aad rabto. Haddii ay sida aad rabto wax noqon waayaan, cibaadada miyaad ka tegaysaa? Waxaan kugula talinayaa inaad xiriirka Alle wanaajiso, cibaadadana ku dadaal si aad Alle u raaligeliso oo keliya. Gabadhii Alle ayay u toobad keentay, cibaadadii ayay ku laabatay si ikhlaas ah, ina adeerkeedna waa ay iska hilmaamtay. Bil kadib, ina adeerkeed ayaa yimid si uu iyada u soo doonto, gabadhii horay oo u doontayna waa uu iska dhaafay. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.